waxaanu wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamij aynu ku eegi doono weerarkii sababay Mareykanku inuu ku soo biiro dagaalkii labaad ee adduunka. ku soo dhawaada barnaamijkeena fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe, like, share iyo comment wixii faalaana nagu reeb barta commentiska. weerarkii lagu qaaday Pearl Harbor wuxuu ahaa mid la yaab leh. shaqo joojin military oo ay sameeyeen ciidamada cirka Japan iyo ciidamada cirka ee Mareykanka oo ka dhan ahaa saldhigga ciidamada badda ee Pearl Harbor ee dhaca jasiiradda Hawaii. Mareykanku markaas wuxuu ahaa dal u dhaxeeya labada isbahaysi ee ku loolamaya dagaalkii labaad ee adduunka. weerarku wuxuu horseedi doonaa gelitaanka rasmiga ah ee Mareykanka ee dagaalka labaad ee adduunka. weerarka ayaa bilowday 7:48 subaxnimo Axadda 7 Diseembar 1941. saldhigga waxaa soo weeraray 353 diyaaradaha dagaalka ee Japan oo ay ku jiraan dagaalyahanada heerka sare iyo bambooyinka wax quusiya. weerar Mareykanka ayaa kala kulmay khasaare aad u weyn weerarkaas. dhammaan 8 guud ee ciidamada badda ee Mareykanka ayaa la dhaawacay oo ay afar gubteen. weerarka ayaa lagu dilay 2403 ciidamada Mareykanka halka 178 lagu dhaawacay. sidoo kale 188 diyaaradood ayaa Mareykanka lagaga burburiyay halka gebi ahaanba la baabi'iyay guutadii Mareykanka ee Arizona. weerarku wuxuu dejiyay wadar ahaan 12 markab oo lahaa Mareykanku halka uu dhaawacay 9 kale iyo sidoo kale waxa uu geystay khasaarooyin aad u badan. khasaaraha soo gaadhay Japan ayaa aad u yaraa. 29 diyaaradood oo kaliya ayaa laga soo riday Japan halka 64 ruux ayaa laga dilay. Japan ayaa weerarka ku tilmaamay mid ay Mareykanka kaga ilaalinayaan badweynta Pacifica iyadoo sheegay inay diidan yihiin dhaqdhaqaaqa iyo faragelinta qarsoon ee badweynta Pacifica oo Mareykanku ku hayo. halka madaxweyne Franklin Roosevelt uu ugu yeedhay 7 Diseembar 1941 taariikh ku noolaan doonta sumcad darro. Japan ayaa ku dhawaaqday 8 Diseembar bayaan dagaal oo ka dhana Mareykanka. 11 Diseembar xulafada Japan ee Jarmal iyo Talyaani ayaa iyaguna si wada jira ugu dhawaaqay bayaan ka dhana dagaal ay ku qaadayaan Mareykanka. That the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. sidoo kale Kongareeska Mareykanka ayaa waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegay inuu dagaal ku qaadi doono wadanka Japan. Mareykanka oo in badan farihiisa ka dhowrayay dagaalka ayaa wixii ka dambeeyay weerarkaas faraha la soo galay dagaalka isagoo la saftay xulafadii ay isbahaysiga ku ahaayeen Ruushka, Faransiiska iyo UK.